kusoo dhawaada cashirkii toddobaad ee intermediate-ka qaybtan waxaan ku bilaabi doonaa insha allah isxasuusin yani waxyaalihii aan kusoo qaadanay bilowgii chapterkan oo ahayd ereyadii aan soo dhignay vocabulary-ga usefulka ahaa ee soo dhignay la xiriiray qaybo badan oo ka tirsan grammarka hadday tahay like time hadday tahay like phrases kala useful hadday tahay nouns. Alright, waxaan xaggan ku haysanaa waa maxay a lot of different vocabulary meelo banbanaan baa jira sida before oo kaleeto waxaan haysanaa afar waxaa ka maqnad 1 2 3 so like sidaas oo kale ayaan buuxbuuxin doonaa waa isla buuxbuuxin doonaa insha allah ereyadaan usagekeedana waan arki doonaa waxyaalaha loo isticmaalaya meelahay galaan english oo dhan insha allah ayaan ka sheekeyn doonaa maanta. Okay, qaybta koowaad before waa like waxay noqotaa laba shay bay noqotaa waxay noqotaa transition word bay noqotaa waxay kaloo noqotaa also like adverb of time waa before waa waqtiga sheegtaa ka hor. Ereygan labaad waxaan haysanaa lso waxaa maqan 1 2 3 saddex erey oo kale ayaa naga maqan ama saddex xaraf oo kale ayaa naga maqan saddex xaraf ee kaleeto maxay kala noqonayaan yaa isku dayi karaya waxay kala noqonayaan saddex xaraf oo kaleeto. Okay, number 1 wuxuu noqonayaa waa maxay wuxuu noqonayaa the letter e buu noqonayaa number 1. Okay, number 1 is e ayuu noqonayaa. Okay, number 2 muxuu noqonayaa markaa le. Okay, hadda s ayuu noqonayaa ka kaleetana we have another s ayaan haysanaa. Okay, markuu intaa marayo waa dareemi karaysan ereygu noqonayso ma le. Okay, lesson oo cashirkii waa noun oo wuxuu noqonayaa lesson oo ah cashir ama darsi ayuu noqonayaa. Okay, wuxuu noqonayaa cashir ama darsi lesson lesson lesson. Okay, xaggan waxaan haysanaa haddana waxaa naga maqan afar xaraf baa naga maqan waxaan haysanaa 5 xaraf baan haysanaa d e and okay d f e e and. Okay, waxay noqonaysaa number 1 ka bilaabno waxay noqonaysaa maxay xaggan xarafkooda naga maqan wuxuu noqonayaa I. The letter I buu noqonayaa xaraf koowaad. Xarafka labaad wuxuu noqonayaa maxaa isna div. f kale ayaa inaga maqan xaggana f kale ayaa inaga maqan waa div. Okay, differ waxaa xaggan ku xigo maxay different ayaa naga maqan haddana xaggana different oo ah adjective oo ah ka duwan shay kale ka duwan weeye different ka duwan different. Okay, different we have different. Okay, what is this one? We have W T O T. Okay, W T O T waxaa loogu talagalay puzzle-kan inaad ugu qiyaasto aad xasuusato anaa idin sheegaya xarafka wuxuu noqonayaa preposition. Okay, preposition is gonna be waa maxay ayaan gelina xagga. Okay, xaggan waxaan u gelayaa
h okay waxaan haysanaa xagga waa maxay with and haysana soma okay waxaan raaci karaya the most appropriate without la-aan ama ka maqan ama ka maran without waa la-aan ka maran ama ka maqan okay ka maran ka maqan ama aan lahayn yani okay count saddexaad waa easy waxaa ka maqan oo keliya cadowga warkitana waa vegetable sorry v e g e vegetable. Okay. You also have like a missing there. And we also have L. Vegetable or khibrad caadiga ahayd is also a noun. Alright, this is another preposition. PTE. We have 3 letters missing. Okay, who's gonna guess what they are? They are, number 1 is what? P E T pit. Wean. Pit. Wean. Between. Sorry, no one khaldamay. Between ma noqonayso waxay noqonaysaa better ay noqonaysaa ama ka wanaagsan. Good maxaa ku xiga? Good comparative-keedu waa maxay? Better ay noqonaysaa ama ka wanaagsan shay kale ka wanaagsan ay noqonaysaa. Okay, better. Alright, better. Okay, tan waxaynu noqon xaggan waxaan ku haysanaa FO laba dash then N. Alright, FO laba dash then N. Okay, ereyga ugu habboon wuxuu noqonayaa maxay? Frozen Z have another either gonna be frozen waa frozen waxaa loo isticmaala markuu shaygu adkaado sida barafoo kale noqo dhexda dhagaxoodo qabow dartiya ayaa la yidhahdaa frozen. And we also have here breakfast. Xagga waxaa ka maqan arti waa ka maqan number 1. Let's put in place. Xagga waxaa ka maqan A. Break. After one and 100. Sorry. Then it's finally have the S. I want to break first. Okay, breakfast. Okay, eraygan waxaan noqonayaa ka sagaalaad. CIKN. Okay, aan buuxino. Chicken. Okay, chicken. Waa digaagii ama alright, chicken waa naqaanaa filayaa. Chicken
chicken, right? Kanna waa maxay? waa erey aan mar walba isticmaalno. Computer, 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 computer is a device that you use every day and for work purposes and all that kind of stuff. waa shay aan isticmaalno shaqada aan ku shaqeyno iyo waxyaalahaas oo dhan aan ku sameyno. Computer. Okay, qaybtan koowaad waxay ahayd in ereyda lagu buuxiyo. Better, sorry, before. Okay, before waxaan isticmaalay all time expression. Okay, before I go to school. Okay, before I met Ali. Before I saw his mother. Lesson. Listen now what the lesson that you take today is lesson. Okay, this is a lesson. maanta waxaan dhiganaa cashar soma. This is called a lesson. Alright, different means like ka duwan. Okay, different, he's different from his brother, different from his uncle. Okay, different from each other. Okay, shay ka duwan. Without wuxuu noqon karaa aan lahayn ama ka maran. The tea is without sugar. Without sugar. haddaan ku idhahdo the tea is without sugar. haddaan ku idhahdo shaahu waa bila sokor soo maa. shaahu waa bila sokor. bila sokor waxay macnaheedu maxay sokor ma laha. Okay, waxaan isticmaalay without si aan ugu point out galeen. Okay, vegetable waa khudradii waa laga garanaya. And just like the carrots, the potatoes and all that kind of stuff. Better, ka fiican, better. Good comparative keedu. For example, like Ali is a good guy, but Abdi is better. Ali waa nin wanaagsan laakiin waxa ka fiican qofka kale soo maaha. Abdi is a good guy, but Ali is better. Better ama better labaduba waa laba dhawaaq kala duwan laakiin waxa ay macnaheedu tahay ka wanaagsan. Frozen is markuu shaygu adkaado inta aad loo qaboojiyo markuu adkaado ayaa la yidhaha frozen. Okay, for example, like the ice cream is frozen, the chicken is frozen, the meat is frozen. Okay, frozen anything talaagada lagu rido la qalajiyo oo la adkeeyo qabow dartii is called be frozen. Chicken waa digaag loo yaqaano. Chicken. Computer is just a computer ka naqaano labadaba waa easy. Okay, marka waxaan xaggan ku haysanaa qaybtii labaad ee cashirka. qaybtan waxaan idinka doonayaa adinka ayaa qaybtan aan samayn doonaa. Let me clean it up aan nadiifiyo xaggan. Okay, waxaad sameynaysaan waxaan idinka doonayaa maanta find 10 more words for fruit and vegetables in the diagram. Okay, waxaad soo heshaa 10 erey oo kale oo magacoodu yahay waa maxay ama u macno ah ama tilmaamaya fruit oo ah maxay ahaa like mirihii la cunayay sida cambaha, muuska iyo tufaax oo kale. Vegetable waa khudradii ashyaada in la kariyo ay tahay marka la cunayo. Alright, waxaan samayn doonaa xabadda waa anaga soo helnay fruit. Okay, talabada aniga ayaa sameynaya laakiin kuwa kaleeto adinka ayaa samayn doona. Okay, waxaan haystaa waa maxagan tomato. I have a tomato here. Okay, so like saan kaasoo kale usoo helay saa markaa maxaan sameynayaa xaggan waxaan ku qorayaa tomato ilaa uu liisku ka dhammaado. waxaa idinka doonaya toban soo maaha. hadda waxaan idinka doonayaa inaad 9 kale aad soo heshaan. Okay, mid kale haddaan ku darnana aan 8 aan idinka tago. kana waa vegetable. Okay, qoraalka qaar baan koryan mulaya. Vegetable, right? Tomato iyo kaasoo ah veg. hadda waxaa idin haray 10kii labaana qabtay 8 kale soo gudbiya
waxaad kusoo diri doontaan insha allah telegram waxaad kusoo diri doontaan anna waxaan idin soo gudbin doonaa tobankii kale oo calaamadaysan baan idin soo diri doonaa insha allah sawirkooda intaa casharkiis diyaar isku arki doona arday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.